هذا هو حيلتها هذا واحد إن يقول لما كان قرية هذا هو هذا وحدة كل شيء هذا هو نعيم بالغارة. والسلام عليكم ورحمة الله. تفضل. muuqato ixtiraamka iyo soo dhaweynta faraxa iyo marxabayntu aad iyo aad baan idinkula shukriya. ilaahay baan u shukriya awalan intaa kadibna runtii si qalbi ah oo aan siyaasi ahayn ee runa walaalnimada baan idinkula shukriya. aad iyo aad baad ugu mahadsantiin arrinkaa. haddaan intaa ka gudbo codkayga si fiican loo maqlaa haddaan intaa ka gudbo waxaan jeclahay arrinkan aad iga sugaysaan inaan ka hadlo markii ilaahay yidhaahdo. halka shay aan idinka codsanayaa waxa weeye idinkoo sida ay yidhaahdaan all of you are ears, idinkoo wada dhega ah oo si cajiib la u dhegaysanaya baan idinku sii adkaynayaa inaad si fiican u dhegaysataan. dhowr shay baan rabaa inaan wax ka taabto. horta maxaa igu kalifay hawshan aan maanta u sharaxnay inaan usoo baxo. laba, maxaan rabaa inaan ka qabto iyo waxyaabahaas aan jeclahay inaan ka qabto waxyaabaha ay u baahan tahay ama ay ku xiran tahay. intaa kadibna waxaan filayaa inay ka iman doonaan su-aalo badan iyo comments iyagana aad iyo aad baa diyaar ugu ah. marka haddaan intaanan bilaabin dr cabdullaahi professor cabdullaahi maxamed ciise aad baan ugu ammaanaya laba qodob. mid waa inaan isku magac nahay oo meesha isku baranay hadda oo ina maxamed ciise u yahay inaan nahay. waa qofkii labaad oo isku magac nahay, qofkii saddexaad. tan labaadna waa hadalkii uu runtii yidhi oo ah ka hor dhici maayo waxaa bal-aadan ama lagu dooran karo ama lagu diidi karo. waxaan filayaa inuu tilmaamayo calaamad cilmi iyo aqoon iyo waayeelnimo iyo waxgarad oo ah bal horta i baro oo maqal waxa aa sheegi doono dabeetana ama waad i diidi doonta ama waad yeeli doonta. marka anna waxay ila tahay inay cadaalad tahay waxaan sheegaa hadday idin qanci waayaan inaad xaqii kula gelin inaad diidaan runtii waxna kama qabo. hadday idin qanciyaan dee markaas waa wax wanaagsan aan waxaa idinka baahanahay waa idiin sheegi doonaa. maxaa igu kalifay horta markaan runta idiin sheego aniga kuma tala galsanayn inaan puntland ka baratamo madaxweynenimo uga baratamo waa iyada laguma jirin. aad waxaase iigu jiray oo muddo dhan aan ka shaqaynayay dad wanaagsan inay u soo baxaan. taariikh hadda sanawaad ah oo badan baan aad uga soo shaqeeya aadna isugu dayay dad wanaagsan inay u soo baxaan. way ka mid yihiin walaalaha hadda gacanta ku hayeen iyo kuwa ka horreeyay. aad iyo aad baan isugu dayay dad wanaagsan yimaadaan. maskaxdayda hadda waa ku sii jirtay. asbaabta aanan aniga maskaxdayda ugu jirin qof waliba waxaa dhici karta wuxuun ambishana inuu leeyahay ama wax doonayo. ambishanka ama tadallucaadkayga shaksiga ah oo doonitaanka ah puntland aad bay igu yaray welina waa igu yartaa. waddanka hadda anigu aan ka imid waan joogo Canada 20 sano waan ku noolahay oo bilaa dhiman. aniga oo yani aad garan kartaan aniga iyo idinkuba waddamada aynu ku noolahay oo aynu ku soo biiray inaynu wax badan ku kala duwannahay. midab, diin, luuqad, dhaqamo, xataa weerarka iyo maarka hawada aynu aad ugu kala duwannahay. oo markaas ay si iska caadi tahay midab kala soocnimo inay timaado iska caadi tahay iyadoo aan dadka lagu xumaynayo. haddana runtii qof intuu ka gaari karo aan dadka intaa kaga duwanay intuu ka gaari karo intii ugu badnayd ama ay dhici karto inay ka badan tahay intii aan u heli lahaa sheerka ama qaybta u heli lahaa ka badan inaan ka gaaray. sidaas yani na waxay ii keenaysay inaan halkaa hawshaa ka sii wado. waddanka aan ku noolahay waxa aan ka noqday in la ii magacaabay waan ka mid ahay 7 qof ee dalka Canada la talisa ciidanka dalka ugu badan ee RCMP la yiraahdo ammaanka
أنا أقف جهري أو الصومالي بل قبل كأن كإبن أو بدل كسدح من المركز اللي قاعد يقول ماشي يسأل dad boqolaal qof oo soo bartay kaliya aan kaga soo baxay arrintaasi inagoo dhamay sharafna oo tahay Soomaaliyeed bal muslimkoo dhan bay sharaf u tahay adiga kaliya kaga jiro marka arrintaasi waa qodob waa wax lacag iyo mushaar kuma qaato laakiin waa wax yiraahdaan very high prestige oo ama mowqif sare oo dadka wax taraya oo qofkii ka soo baxa haddii CV-ga uu professor uu sheegay ciise iyo ragga kaleba ay tarayso qofku inuu rabo inuu wax ku qabsado laba waxa waddanka Canada u dhisan yahay waxa la yiraahdo federal oo waa waddanka hadda nidaamka hadda aynu qaadanayno dalka Soomaaliya federalismka in lagu dhiso waa waddanka runtii tusaalaha u noqonaya waxay wadamo yar federalism ama nidaamka ku shaqeeya sida Canada Australia Ethiopia oo ku cusub tahay dabcan iyo wadamo aan badnayn Canada Mareykanka oo ka duwan oo federaalkiisu uu ka duwan yahay kuwa hadda ay sheegayeen waa wadamada aad u yar wax weyn ay ka tari doonto nidaamkaas markii la rabo in la qaato oo saddex level waddanka u kala baxa levelka federal governmentiga iyo provincialka iyo municipalka marka gobolka ninka haysta sida gobolladeena hadda Puntland oo kale ninka haysta premier bay ku magacaabaan bimacnaa waa president laakiin waxay rabeen waddankan president lahayn oo prime minister u sareeya maadaama waddan uu boqortooyo yahay oo boqortooyadii magaceedii haysato sidaas loogu magacaabay magacan cusub laakiin premier wuxuu la mid yahay president marka gobollada marka ugu weyn Ontario ka mid ah magaalo marka dadkana ku taalo magaalada aan joogana magaalada Ontario ay u tahay ayadana waxa la iiga magacaabay inaan ka mid noqdo wax la yiraahdo Council the College of Dental Hygienists of Ontario oo macnaheedu yahay waa qayb dalka caafimaadkiisa ka tirsan dadka regulate gareeya ama sharciyada u dejiya oo ka shaqeeya taasna qofkii ugu horeeya Soomaaliya oo meel bal loo magacaabo darajadaas innaga oo 200 lagu tilmaamo dadka Soomaaliya oo kala ku nool qofkii ugu horeeya oo Soomaaliya oo meeshaas taga baana taas waxaa niyadeyda ku jirtay maadaama aan xisbiga waddanka muddo dheer u talinayay isagana mimbarka ah muddo 10 sano ah waxaan maskaxdayda ku jirtay inaan u sii gudbi doono darajooyin kale oo waxaan ku raadaa political arena ku tacalluqa oo aysan qariib ahayn maalin maalmaha ka mid ah inaad aragtaan ama maqashaan anoo waxaan ku raadaa matalaya dalka Canada darajooyin ka mid ah darajooyinkiisa kale oo siyaasiga ah taasi maadaama aan leynkaa ku jiray runtii Puntland iskayga markaa kuma jirin wax ka noqdo laakiin Puntland oo aad ugu weyn oo dadkaygii ka mid ah shaqo badan oo kale baan u hayo ayaa ku habboon markii laga reebo wixii aan u qabtay markii laga reebo ama aan weli diyaar u ahay qodobka labaad hadiiba Soomaaliya iyadoo ku jirtay waxaan islahaa meel shaamil ka sarreysa ka dagaal bilow markaysa Soomaaliya aad ka noqon karto madax أنا أسأل بدري عبد الله يسمى هذا اللبرة ما كله لكن مستقبل يعني واحد ولدي تاس ده بفكري إن سداس وبوسو وبفكري فرق الصدحات وأنا بفكري إن ممكن لأن مدح كان الله روحها فرق كله اللوجي هاي بطل ذلك الرواد شيء كان هذا الصوم هاي وكان وأقل لو اللي يتبع إيرادات يمكن مدح ما بدي لأن كان رمضان طوال بتاع العقل تلك بعيسى أنا ولا تاس ممكن بريسمبل هذا ما أميسري وإذا تكلم جبته دين إلى معها تضمننا إلى معها وحنجي علينا معها وما أميسري العقل وحنيل لها العقل اللي ما بحيست وأيضا هو مشكلة كلا وأيضا إسكابيتر أرماها يعني ممكن إذا أنا أقول لك هو الرمية أرماها أسي وحنا بنقول فكرين كنتي الآن أسيء الشيء waxay ugu kalifay waxay ahayd